anigu magacayga waxaa la yihahdaa maxamed maxamuud cadde. ina lilahi wa ina ilahi raajicuun. saaxiibkayga qaaliga ahaa axmed cabdinuur, ilaahay ha u naxariisto, ilaahay samr iyo iimaan ka siiyo, xaaskiisii, caruurtiisii iyo qaraabadiisii. intaa marka laga gudbo, axmed cabdinuur waxa uu ahaa wariye soomaaliyeed oo rugo caddaaya. marka ay timaado af soomaaliga waxa uu ahaan jiray nin cabqari ah, waxa uu ahaan jiray qaamuus lagu soo hirto marka ay timaado isku turjumada ereyada. markay cayaaraha timaado 40 sano ugu dambeeyay cayaarihii dhacay iyo cayaartooydii caanka ahayd, taariikh nololeedkooda, cayaarihii ay ku soo caanbaxeen, xataa cayaartii ugu horeysay ee qofkaasi cayaartooga magac weyn yeeshay wuu aqoon jiray. waxa uu ahaa nin shaqo badan oo qabta howlo fara badan, nin dulqaad badan, nin deeqsi ah, nin sabir badan, nin u naxariista dadka masaakiinta ah, nin saaxiibadiisa jecel. idaacadaha marka laga shaqeynayo dadku waxay arkaan oo ay dhegeystaan idaacaddii oo laga soo shaqeeyey. xilliga laga shaqeynayo dadku waktiga ayaa ciriiri ku ah, shaqaduna waxa weeye mid karkaba miirana. axmed cabdinuur oo xanaaqsan lama sheegin hadday idaacadda xataa 2 daqiiqo ka dhiman tahay ama haddii ay 5 daqiiqo ka dhiman tahay oo waktiga salaada soo gasho, waxa uu jeclaan jiray inuu salaadiisa tukado. ragga uu u igmado howlahaasna inta badan xaaladiis way ogaayeen. waxa uu ahaa nin aan la heli karin oo macaan, oo dabeecad macaan, oo maslaxa jecel, oo soomaalinimada jecel, oo masaakiinta jecel. barnaamijyadii abaaraha ka sheekeyn jiray iyo barnaamijyadii dadka barakacayaasha iyo qaxootiga ka shaqeyn jiray, inta badan waxa uu ahaa suxufigii roog cadaaga ah ee isku dubaridi jiray. waxa uu ahaa nin markaad u baahan tahay oo hawsha adag tahay, xataa hadduuna shaqeynayn guriga looga yeero. waxa uu ahaa nin ayna hawsha ka maarmin. waxa uu ahaa haddii dadka shaqaalaha ee wada shaqeeya ay qof tacsi gasho ama dhibaato ku timaado, ninka naxariista ama asxaabteena noo hadla oo wanaaga jecel. waxa uu ahaa nin diinta jecel, sadaqada jecel. aniga gaar ahaan waxaan aada iyo aada u xusuustaa, allah u naxariiste, aniga isaga oo meel BBC-da ka baxsan qaxwo ku cabayna xilli qabow ah ayaa waxaa noo yimid nin miskiin ah oo dhaxamaysan oo dadka wadanka u dhashay aada u diifaysan. waxa uu yihi anigu waa baahanahay, erey kale ma oran. axmed inta istaagay oo boorsadiisa furay ayuu ninkii wuxuu siiyey 10 geni. markii uu fariistay ayuu aniga wuxuu ii sharaxay, wuxuu yihi ninkaas miskiinka ah erey itaabtay ayuu yihi, waa baahanahay buu yihi. qabowgaas aad aragtay maxamedow, dhaxantaas aad aragtay, aniga adiga qaxwaan cabaynaa, banaanka si olokaca u fariisanay, meel diiran baan kasoo baxnay. ninkaas xalay banaanka ku hoyday ee baahan, aana celi u maqnayn, haddii aan sadaqo siin waayeyaa siinaya. adiga waxaan kaa codsanayaa xaaladaas oo kale markaa aragto inaad dadka masaakiinta oo kale inaad sadaqo siiso. iska daa soomaalida iyo dadka baahan ee wadankan jooga. mararka xaaladaha qaarkood, ciid adxada oo kale, ciidaha oo kale, lacaga sadaqa ayuu dirsan jiray. nin waxa uu ahaa sama jeclaa oo wanaaga jecel. nin wuxuu ahaa saxaafadda aada ugu jajaban oo muddo dheer kasoo shaqeeyey. dhinacyo waxaa jira dad badan aynan waxba ka aqoonin. waxa uu ahaa nin aqoon-yahana oo macalin ahaan jiray jaamacadda Lafoolo ka baxay. waxa uu ahaa nin cayaaraha jecel oo garsooraha heerka 1 iyo heerka 2 bartay, oo cayaaraha xaafadaha markuu dhalinyarada ahaan jiray xaafadda Boondheer uu ku dhashay magaalada Muqdisho. waxa uu ahaa nin ku weyn saxaafadda Soomaaliyeed, soomaalidana codkiisa ay mataqaanaa jecel yihiin, ka dhargiya dadka hadalka, eraya xulashadana had iyo gooraale marka uu ka dhageysanayo wariyaasha la tababarayo erayada wuxuu dhihi jiray qofka ku dhageysanaya marnaba iyo isdhihin ninku muxuu yiri, warwariyuhu muxuu sheegay oran. waa inaad hadalka ka dhargisaa,
hadalka u tartiibisa. ilaahay ha u naxariisto walaalkay, ajasha qof walba waqtigeeda imaanaysa, laakiin waxa uu ahaa nin soomaalida iyo meel kasta ay joogaan iyo saxaafadda ehel u ah, soomaalida dhibkeeda ninuu dhib u ahaa, nin wuxuu ahaa sama jeclo ah, nin waxa uu ahaa hadalkiisa wanaag iyo deeqsiin leh, nin waxa uu ahaa marka aan jiraan feestooyinka waaweyn wadankeena lagu yaqaano ama raashinka soomaalida oo kale marka la sameeyo, wuxuu ahaan jiray ninkaan u igmano inuu magaca soomaalida ku hadlo. cunooyinka si fiican ayuu yaqaan, nin naxariis badan buu ahaa oo u naxariista cid allaale ciddii uu la kulmo. walaalkay allah u naxariisto, kulligeenna samri iyo iimaan allah naga siiyo.